hadda ma rabna in loo fahmo inaan nahay niman ilaahay iimaanka ka qaaday oo aan xukun la'aan noolaa karin markii wax kala degaan oo madaxweynaha aan siino firaaq siyaasi oo madaxweynaha aan siino muxuu ahaa isbeys siyaasadeed aan siino oo madaxweynuhu ra-iisul wasaare ku magacaabo oo xukuumad u dhisto oo xukuumadda waqti aan siino oo dalkay u shaqayso oo aan aragno subaxii waxaa jira mar la yidhahdo kaa hawaaberi oo doorashada markaan kor ka aragno inaan shirweynihii xisbiga iskugu imaano marka oo xisbigii iyo hoggaankiisii iyo istructurekiisii la sameeyo oo aan iskugu imaano oo shirweyne lala yaabo oo taariikhda kutuba laga qoro aan samayno yaan maaragtay ku rajo weynaha laakiin waa sida aan sheegay waa beri markaan aragno oo kor ka aragno weye tan labaad oo aan idinkula dardaarmayo waxaa weye walaalayaalow waa meesha ay soomaali la'dahay waa arrinta qabyaaladda iyo qabiilkan nagu iftileeyey qabiilku wax dhiba ama ceeba oo uu leeyahay maleh aniga idinla hadlayo qabiilan ka dhashay haddii hadda sida wax u socdaan usii socdaan kursiga qabiila iska leh qabiilan ku matelaa qabiilan maaragtay haddii maantay aan qof kale gacantiisa ku baxo diida ka qaadanaya waa dhaqan taas hadda wax anaga gaara oo yani xumaanaho aniga iigu muuqato ma jirto in dadku qabaal isku barto waa arrin diini ah laakiin arrinta qabyaaladda la yidhaahdo qofkii yacni raba ama aaminsan inuu ku qanacsan yahay oo uu shiraakil siyaasadeed la yahay oo uu muxuu ahay garab iyo gaashaan u yahay madaxweyne farmaajo qofkaas waa inuu ogaadaa maalintii uu go'aansaday inuu madaxweyne farmaajo shirkad la noqdo siyaasadeed maalintaasuu qabyaalad ka tegi aslanba wax aan isla jaan qaadayn waxa weeye madaxweyne farmaajo ayaan muxuu ahaa ku qanacsanahay siyaasaddiisa qabiilina waa noqonaa isma keenaysa taas waxaana looga baahan yahay in yacni siyaasadda uu u taagan yahay iyo dhaqankeennu inay is yeeshaan soomaaliya sidaan hore u sheegay qof kasta qabiil waa leeyahay anugu qabiil waa ka dhashay 22 ka mid ah oo nin kasta uu astaahilo inuu soomaaliya madaxweyne ka noqdo oo nin kasta oo qiimo gaar ah leeyahay oo karti gaara uu leeyahay oo aqoon gaara uu leeyahay oo aragnimo gaara uu leeyahay oo qaarkood dalka ay soo maamuleen yaa tartamayay laakiin siyaasad ahaan anigu waxaan ku qancay inaan xooggayga iyo maaragtay caqligayga iyo dhiiggayga iyo dhaqaalahayga iyo naftaydaba inaan la garab istaagay madaxweyne farmaajo marka waxaa walaalayaal idinkaga baahan yahay arrintaas muxuu ahaa iga raalli ahaado anigu waxaan ahay dadka xoogaa iska hadalka adag si gaara waxaan oola hadlayaa soomaali hadda waxaa la yidhi jabuuti markii la tegey 4.5 wax ku soo qaybsatay xaafadda anigu aan ahay ma ahan jaalahawiye madaxweynuhu waa xaafad kaloo jaaladarood la yidhaahdo iga raalli ahaadaya dadka taageerayaasha madaxweynaha ah ee jaaladarood ah waxaa saaran mas-uuliyad aan saarnayn dadka kale ee madaxweyne farmaajo siyaasaddiisa la dhacsan sababta waxa weeye tallaabo kasta oo aan qurux badnayn oo aad qaado waxaad ku xisaabinaysaa waxaad yacni minus ka dhigtay oo aad naaqusisay siyaasaddii farmaajo tallaabo kasta oo qurxoon oo aad samaysana waxaad tahay muraayadii madaxweynaha laga arkayo oo reerkiisa marka waxaa la idinkaga baahan yahay mas-uuliyadda dad kale aan saarnayn yaa haddii halkan dee soomaaliya meel kasta waa joogaane aad halkan ku jirtaan nimanyo reerkaas haddaad tihiin waxaa la idinkaga baahan yahay wax kasta oo sawir qaldan bixin kara inaad ka fogaataan mas-uuliyad annaga aanna saarnayn idinka idin saaran tusaale haddaan idin siiyo hadda madaxweyneha meesha yimid madaxweynuhu waa nin aniga in adeerkay ah oo hawiye ah markay sidii xisaabtii caadiga ahayd la aado haddii maanta qof idinka mida oo madaxweynihii oo aan ra-iisul wasaarihii magacaabin oo aan weli salkii dhulka dhigin aad dagaal ku bilowdaan dadka kale waxay u fahmayaan madaxweyne farmaajo inaadna soomaalinimo ku taageersanayn ee markii hore aad qabiil ku taageersanayseen haddii hadda madaxweynaha meesha yimid aad garab istaagtaan ilaa isaga oo la imaanayo xumaan looga tago oo la imaanayana meeshaas waxaa ka cad shalayna inaad madaxweynihii hore soomaalinimo ku garab taagneedeen madaxweynahana soomaalinimo ku garab taagneedeen laakiin isaga oo soomaalinimadii calfan waaye tusaalaha ugu fiican waxaa weeye 2012
madaxweyne sheekh markii la doortay aniga dadkii aad u garab istaagan ku jiray 2 sano yaan maaragtay la shaqaynayay laakiin markii dambe aan arkay inuu la habaabay baashii yaan dhinaca kale oga leexday marka walaalayaalow waxaa la rabaa qof kasta oo annaga naga mid ah waa haddaan nahay jamaahiirta haddaan aniga taageerayaal ma isticmaalo mas-uuliyadda saaran waa bigjarkii madaxweyne farmaajo waaye siduu u dhaqmo waxaa looga qaadanaa inuu madaxweyne farmaajo saas u dhaqmaayo haddaa qabyaalada aadaan waxaa loo fahmaa madaxweyne farmaajo inaad habeenkii teleefon iskula hadashaan oo qabyaalada oo isaguna ka shaqeeyaa loo fahmaa marka mas-uuliyad yaa idin saaran qodobka ugu dambeeya waxa weeye oon idinkula dardaarmayo inaad maaragtay midnimadiina inaad xoojisaan inaad adkaysataan xukunka waa ognahay waa xanuun badan yahay marka lagaa farmaroojiyo adoo raba anigu kuleeba hadda waddankan 14 sanaan joogaa wax badan hadda jab iyo farxad iyo xaalado badan oo nololada iskugu jira waa soo arkay waxaa la idinkaga baahan yahay walaalayaalow inaad adkaysataan oo sharaftii shalay markii xafiiska aan joognay iyo qadarintii iyo qiimihii inaadna maanta naaqusin ood midnimadiina waxaa dhacaysa dowladdu waa cusub tahay qof kasta teleefona loo soo diri doonaa mid qabyaalo lagu leexiyo mid laaluush lagu leexiyo mid darajo la tuso mid si kan wax loo tuso marka stay strong midnimadiina iyo muxuuha awoodiina yaan maaragtay idinkula dardaarmayaa inaad adkaysataan oo isjeclaataan oo jacaylkiinu soomaalinimo u noqdo waxaad yani rabaa inaad xifdisaan madaxweyne farmaajo ma rabtaa haa dhaqan fiicana laga rabaa farmaajo ma rabtaa haa qabyaalad inaad ka tagtaa laga rabaa farmaajo ma rabtaa haa danta dalka soomaaliyeed number 1 iyo number 1 intaba ku ah intaas yaan walaalayaal kusoo gabagabeynayaa haddii aan maaragtay wax qalday muxuu ahaa يعني انت halkaas aadin waxaan rabaa hal qodob oo kale oo ugu dambeeyo reeralaada waxa weeye oo rabaa inaan kugu bishaareeyo hanti waxa jirta la yiraahdo hantida muguurtada ah hantidaas inta badan waxa la yiraahdaa qiimaheedu ama daah ha ahaado ama dhul ha ahaado ama mercury ha ahaado qiimaheedu marnaba inta badan inta marnaba aan dhahaynay hoos ma aado waa hanti muxuu ahaa meel ku taala madaxweyne farmaajo wuxuu uga duwan yahay siyaasiyiinta kale oo Soomaalida ah yani hantida meesha taala midna ma ogida inaa ganacsi qaarkiin soo arkeen waxa jira dharka markii la gadaayo dhar higis la yiraahdo marka dharka higiska waxa waaye hadii dukaankaaga uu xoogaa saarnaado bil iyo 2 bil iyo sanad kadib yani dharkaas ma gadmo madaxweyne farmaajo wuxuu uga duwan yahay siyaasiyiinta kale waa mercury waaye waa diamond waaye marnaba qiimihiisu inuu kor u sii socdo maahane marnaba hoos uma soo soconaay tusaale haddaan idin Kampala Accord galabtii aan Kampala ka nimid xamar aan nimid yani dadku waxay u arkayeen inay musiibo dhacday waxa ku xigay 2012 markii aan tartanay oo aan guuldareysanay sidoo kale maana guuleysan laakiin sumcaddii kor ayay sii aaday hadda markii madaxweyne farmaajo xafiiska uu yimid waa ogeedeen sumcaddii hadda markii madaxweyne xashiq uu meesha yimid waatan leeyahay madaxweynuhu in la abaal mariyo marka waxaan rabaa ugu dambeyn inaan qalbigiina ku qaboojiyo waxaad haysataan hadiyad dhanka ilaahay idinkaga timid iyo haysataan waa muxuu ahaa waa yani waa mercury aan marnaba qiimihiisu dhacayn marka intaas yaa dadka kale uga duwan tihiin ku far adayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.